In return for this, tan beddelkeeda ama soo laabashadii, the bigrot waa tuugsadahe stood wuxuu ku istaagay on his head waa madaxiisa, andha iyo sang wuxuunu heesay, sangis waa heeso. I gave waxaan siiyey him asiga a meal waa cunto, he ate waa uu cunay asiga, the food waa cunada, andha iyo drank wuxuuna cabay, the beer waa khamrada. intaas hordhacda waxay ahayd yani dholotusoo keliya. insha allah muuqaalkan isla muuqaalkan waxaan ku daba xiri doonaa cashirkan anigu ku dul akhrinayo ku luuqeynayo qaabka qoraaleed yani isagoo habaysan. insha allah tan waxay ahayd oo keliya isku dayga ama yani qaabka u duubo saa u jeedaan buugga waa New Concept English waa practice and progress. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. alxamdulilah walaalayaal, muuqaalkan waxaan rabnaa in yani aan ogaadano yani qaabka u sameeyo casharada oo kale. inta badan waxaa soo geliya yani youtube-ka like casharada iyo codka oo keliya. waxaan rabaa hadda anigoo jilay oo kale jiliin oo kale yani qaabka u duubo. horta aniga inta badan yani casharada ma aha yani waxa korka hidisana iska akhrinayo buugan ka akhriyaa kadibna mobilka caadiga ku duuba. ma isticmaalo waxyaalo yani microphone ah istil yani waxyaalahaas aaladahaas oo kale macnaha heerkaas oo kale weli ma aanan gaarin. insha allah one day laakiin way dhici doontaa in yani waxyaalo cusub ay yimaadaan insha allah. qofkeena inuu hubi lahaado way fiican tahay waxba cakas u rajeeyo. marka hadalkaan ku dheereen marka buugu way agyaala sa jeclahay buugu way agyaala insha allah waxaa ka bilaabi doonaa practice and progress. waa buug New Concept English inta badan aan soo gelin jirin. insha allah casharada yani inta badan hal iyo labo waxaa soo qabto aan isku dayi doonaa keliya yani waxaa weeyaan qaabka yani u duubo. had laakiin inkastoo yani mobilka wax ku duubayo inta badanna mobilka ku duuba saa hore kuu sheegay kadibna waa edit gareeyaa kadib baa yani youtube ka soo geliyaa. hadda waxaan isku daynaa insha allah inaan soo qabanno lesson 6 Percy Botanist. waa cashirkii lixaad. marka markuu akhriyay ninka I have just moved to a house in Bridge Street markuu dhaho aniga duqeylama insha allah isku daynaa dhegeysi waxaan I have just moved waxaan u guuray to a house waa guri in Bridge Street waa wadada buundada. Bridge waa buundo, street ee wadada. yesterday shalayto a bigger waa tuugsade naked ayaa soo garaacay at my door waa albaabkeyga. he asked me wuxuu i weydiiyey for a meal waa cunto, andha iyo a glass of beer waa glass khamro ah. in return for this, tan beddelkeeda ama soo laabashadii, the bigrot waa tuugsadahe stood wuxuu ku istaagay on his head waa madaxiisa, andha iyo sang wuxuunu heesay, sangis waa heeso. I gave waxaan siiyey him asiga a meal waa cunto, he ate waa uu cunay asiga, the food waa cunada, andha iyo drank wuxuuna cabay, the beer waa khamrada. intaas hordhacda waxay ahayd yani dholotusoo keliya. insha allah muuqaalkan isla muuqaalkan waxaan ku daba xiri doonaa cashirkan anigu ku dul akhrinayo ku luuqeynayo qaabka qoraaleed yani isagoo habaysan. insha allah tan waxay ahayd oo keliya isku dayga ama yani qaabka u duubo saa u jeedaan buugga waa New Concept English waa practice and progress. casharadana aad yani u akhriyaa inta badan inkastoo waxyaalo badan ay ka dhiman yihiin. insha allah hadduu ilaahay waqti uu noo saamaxo oo ilaahay subxaana wa tacaala cimrigaas ina gaarsiiyo insha allah waynu soo badan doonaa. assalaamu calaykum iyo muuqaalka la xiga daawo next video insha allah. Lesson 6 Percy Buttons. First listen and then answer the question. Who is Percy Buttons?
I have just moved to a house in Bridge Street. Yesterday, a beggar knocked at my door. I have just moved waxaan u guuray to a house waa guri in bridge ee buundada street ee waddada bridge street waa waddada buundada yesterday shalayto a beggar oo tuugsade naked ayaa soo garaacay at my door waa albaabkayga he asked me wuxuu i weydiiyey for a meal oo cunto and iyo a glass of beer waa galaas khamro ah in return waa soo laabashadii for this ee tani in return tani beddelkeeda ama soo laabashadii for this ee tani the beggar oo tuugsadahe stood wuxuu ku istaagay on his head waa madaxiisa and iyo sang wuxuuna heesay songisoo heeso I gave him waxaan siiyey asiga a meal oo cunto he ate oo cunay the food waa cuntada and iyo drank wuxuuna cabay the beer waa khamrada